dadka Soomaaliyeed haddii aan dhulkaygo dhaxaya ku tiri wana soo dhawaan dhegin ninka dhoofka ka jira wana dhalin murtiyo hadal la yidhaahdo dhaxalbe adigaynu dhiganiyo marumaynin dhaarti adigaynu dhiganiyo marumaynin dhaarti dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in shabaab dagaal lagu cirib tiraayo lagu qaadi doono sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro malaha dagaalkaas waa socdaa guulo la taaban karo ayaana laga gaaray gaar ahaan deegaanada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle kasirteena dhiibiyo Soomaali wuxuu dhimay dhigtaa dhiiga loo dari waxa uu yaalay waa laba khiyaar mid inaan dooranno annaga iyo shabaab iyo magaca saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan inagu noolaano laakiin islaba noolaan karno waxaan rajaynayaa sida shacabka Soomaaliyeed go'aanka ugu gaaray dawladooduna ay ku hogaaminayso inay isdhaafiyaan inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhamaaday ayaan rajaynayaa dhaqaaqiyo gela dhaqaalay waradu dhaxaadkiyo ku noqonid balahi adigaynu dhiganiyo marumaynin dhaarti adigaynu dhiganiyo marumaynin dhaarti qof shabaab ku hoos nool oo xora ma jiro ilmihiisa xor uma ahan waa laga kaxaysanaya xoolihiisa xor uma ahan gurigiisa xor uma ahan gabadhiisa xor uma ahan ciduu rabo ma siisan karo shabaabka ka guursanayo ka wadanayo ka xoogaa waxaas qof muslina ma dul qaadan karaa iyada oo qof muslina oo damiir leh madaxiisa koreeyo wax la aqbali kara ma yihiin sidaa daraadeed in lagu jihaado ayay culimadu fatwootay jihaad rasmi ah ayaad ku jirtiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana ajir buu idinka siinayaa dadkiina iyo deegaankiina khidmad wanaagsan baad u qabateen khawaarijtu waa kilaabu naar oo xadiidkii kale ma ahayn qofkii qof dila wuxuu la mid yahay isaga oo dadka oo dhan dilay dadka Soomaaliyeedu walaalayaal dadka Ilaahay iyo rasuulkiisa suubanaay saas ku sifeeyeen cudurdaar ma leedahay in loo cadaalad doonto in dhaqaale la siiyo in guri laga kireeyo in la qariyo ama la dhuumiyo isaga oo dhagar maleegaya ma aha inay diin laawayaal yihiin oo kaliya ee waa mas dilaa ah oo marada kugu jira mas dilaa ahna xalkiisu waa dil inta uu soo ku dilo
shacabka Soomaaliyeed ee goostay inuu heeriyada abnaa'u jahannam ama ciyaalka naarta ay iska dulqaadaan in la joojiyo oo la istaajiyo taasi ma soconayso. Soomaali go'aan bay gaadhay, waxay ka socotaa heeriyadooda in la iska dulqaado. Galmudug waxay ka socotaa Hirshabeelle iyo meelo kale oo dalka ka mid ah, waxayna si dhab ah uga bilaaban doontaa meelo badan oo kale, waana la iska xoreynayaa Ilaahay idankiisa.